dowladda waddanka ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ay gebi ahaanba ay xakameynayso hawada waddankaasi Ukraine waxaana ay tilmaantay inay xoojin doonto howlgalka dhinaca dhulka ah ee ciidamadeedu ay ugu sii dhowaanayaan caasimadda Kiev ee waddankaasi Ukraine. waxaa halkaasi loo daabulaya ayaa la yidhi hubka ay reer galbeedku ay siinayaan dowladda waddankaasi Ukraine waxaana la shaaciyey in dowladda ruushka ay joojisay in ay horey ugu sii dhaqaaqda ayaa la yidhi maalintii lixaad caasimadda Kiev ee waddankaasi Ukraine. sawiro ay soo qaadeen dayax-gacmeedyada ayaa waxaa la tilmaamayaa in ciidamada ruushka ay dhaqdhaqaaqyadoodii xoogan uu ka socdo waqooyiga magaalada Kiev ee caasimadda waddankaasi Ukraine halkaasi oo ay magaalada ugu sii dhowaanayaan. sawirada waxa ay muujinayaan la yidhi in fogaan 76 kilomitir ay u jireen magaalada Kiev gelinkii dambe ee Axadii balse hadda waa ay soo jareen ayaa la yidhi 27 kilomitir kaliya ayay u jiraan caasimadda waddankaasi Ukraine. waxay sawirada sidoo kale ay muujinayaan la yidhi boqolaal gawaarida gaashaaman iyo dabaabadaha dagaalka iyo madaafiicda xoogan iyo sidoo kale shixnadaha loojisikada oo ay ciidamadu ay wataan kuwaasi horey ugu soo dhaqaajiyay la yidhi magaalada Kiev. howlgalka waxaa ku soo ziyaaday ayaa la yidhi in la kordhiyey duqeynta ruushka ee caasimadda Ukraine uu ka waday tan iyo gelinkii dambe maalintii Isniinta ahayd. waxaa soo gabagaboobay wadaxaajoodkii lagu doonayay in xabajoojin labada wufuud ay ku gaaraan ruushka iyo Ukraine waddanka Belarus. warbaahinta ruushka waxa ay sheegtay in wafdigii ka socday ruushka ay dib ay ugu laabteen caasimadda Moscow kuwii ka socdayna dalkaasi Ukraine caasimadoodii dib ay ugu laabteen si ay wada tashiyo madaxdoodii ula soo sameeyaan. waxaa jirta weli in la maqlayo dhawaqa digniinada magaalada Kiev ee caasimadda waddankaasi Ukraine. wariyaha kanalka Al Jazeera Al-Mu'taz Billahi Xasan ayaa waxa uu soo sheegayaa in 3 gantaal ay ku dhaceen deegaanada magaaladaasi Kiev. waxaana sidoo kale uu yidhi waxaa jirta qaraxyo aad u xoogan oo laga maqlayo caasimadda tan iyo bilowgii duulaanka ruushka uu ku soo qaaday waddankaasi Ukraine. natiijada dagaalkaasi ruushka waxa uu tilmaamay in diyaaradahoodii dagaalka ay yihiin kuwo si aad u xakameeyay hawada waddankaasi Ukraine aysan jirin wax diyaarad ah oo dhaqdhaqaaq ka sameyn karta. ruushka waxa uu sii wadaa ayaa la yidhi sidii uu dhisi lahaa ayaa la yidhi buundo dhinaca bariga ah oo dhulka Ukraine si uu ugu isticmaalo isku socodka gawaaridiisii dagaalka ah. dowladda waddankaasi ruushka ayaa waxa ay wasaaradeeda difaaca ay sheegtay in la xoojin doono howlgalka lagu qabanayo magaalada Kiev. magaalada taariikhiga ah ee ugu weyn midda labaad ee dalkaasi Ukraine ee Kharkiv ayaa waxa ay ruushku ay isku dayayaan in ay xakameeyaan inkastoo iska caabin xoogan ay kala kulmayaan ciidamada waddankaasi Ukraine. dhacdooyinka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in ay jirto madaafiic labada dhinac isku wadaarsadeen gobolka Donbass oo ay ciidamada Ukraine iyo sidoo kale kuwa gooni-goosadka ee u janjeera ruushka ay ku dagaalamayaan. dhinaca koonfurta waddankaasi Ukraine wasaaradda difaaca ee ruushka waxa ay sheegtay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen magaalooyinka Berdyansk iyo sidoo kale in Hawadik ee koonfur bari dhaca. waxaana la tilmaamayaa in deegaanadaasi ay yihiin xarumaha ay ku yaalaan tamarta nukliyeerka ka oo si aad ay u xakameynayaan ciidamada dalkaasi ruushka inkastoo dowladda Ukraine ay beenisay in gacanta lagu dhigay xaruntaasi. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ruushka waxa uu sheegay in xarunta tamarta nukliyeerka ay tahay mid ay hadda ay maamulayaan ciidamada waddankaasi ruushka. gelinkii dambe Isniinta ruushka waxa uu sheegay in ciidamadoodii ay ka shaqeynayaan sidii ay u go'doomin lahaayeen magaalada Mariupol oo dhinaca badda laga soo galayo ayaa la yidhi iyo jihooyin badan. dowladda waddankaasi Ukraine waxa ay sheegtay in ay jirto 12 qof oo iyagu ku geeriyootay duqeynta gantaalada ah ee ay ciidamada ruushku ay la dhacayaan magaalada Kharkiv ee waqooyi bari dhacda. safiirka Ukraine ee dowladda Mareykanka Oksana Markova ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in dowladda ruushka ay adeegsanayso bambaanooyinka sunta ah ka oo ay doonayso inay ku tijaabiso caasimadda Kiev ee waddankaasi Ukraine. sidoo kale waxa ay ku wargelisay xubnaha Koongareeska waddankaasi Mareykanka in ay qalad ay tahay xadgudub weyn ay tahay in bamba sun ah loo adeegsado ayaa la yidhi
dagaalada waxaana taasi horey u mamnuucay heshiiska Geneva. wasaaradda difaaca ee wadankaasi Ukraine waxa ay sheegtay in la bartilmaameysaday diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn oo ay lahaayeen militariga Ruushka ka oo lagu soo riday ayaa layidhi wadankaasi Ukraine. wasiirka difaaca ee Ukraine Oleksiy Reznikov waxa uu sheegay in ka badan 5,000 oo askari oo Ruush ah in lagu dilay dagaalka inta uu soconayay. boqolaal ka mid ah ciidamadaasina gacanta lagu dhigay. ciidamada Ruushka laba khiyaar ayaa hortaala, ama inay ku geeriyoodaan dagaalka ama in ay cafis guud ah ay weydiistaan dowladda Ukraine ay isdhiibaan, ayuu yidhi. wasaaradda difaaca ee wadankaasi Ukraine waxa ay ka shaqeynaysaa, ayuu yidhi, sidii ay u mideen lahayd shacabka iyo ciidamada si laisaga caabiyo ciidamada doonaya in ay xooga ay ku soo galaan wadankaasi Ukraine. madaxweynaha wadanka Ukraine waxa uu sheegay in ay maxaabiista iyagu ku jira xabsiyada ay sii deen doonaan si ay kuwoodii khibrada dagaalka u leh ay dagaalka ay kula biiraan si laisaga xakameeyo duulaanka Ruushka uu ku qaaday wadankaasi Ukraine. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay in uu cafis u fidin doono ajaanibta calooshooda u shaqaysayaasha ah si ay ugu biiraan dagaalka ka socda magaalada Kiev ee wadankaasi Ukraine. waxa uu sheegay in ay u fasaxan yihiin in dalkiisa ay amar la-aan ay soo geli karaan, waxaana uu tilmaamay laga bilaawdo 1 bisha Maaj oo maanta ku beegan in uu u ogolaanayo in kooxaha calooshooda shaqaysayaasha ah inay ka barbar dagaalamaan dowladda wadankaasi Ukraine ciidamadeeda militariga. waxaana uu sheegay in ilaa iyo qaraar dambe oo la gaarayo iyo sidoo kale dagaalka uu ka soo gabagaboobayo in kooxahaasi ay diyaar u yihiin inay ku qaabilaan magaalada Kiev si ay awood ay ugu biiriyaan ciidamada militariga ee ka hortagaya kuwa Ruushka.